أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صباح wanaagsan. maanta ay tahay 8 maash ay tahay maanta insha Allah maalin axad ah. saacad wadankan aan joogana waxa waaye 2 saac weli lama gaarin 7 iyo xoogaa waaye. jawiga banaanka xoogaa waxaan dareemaa xoogaa qabow wax yar. alxamdulilah jawiga waa degan yahay. waxaan kusoo toosnay nabad. ilaaha mahad oo dhan u sugnaatay. asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah walxamdu lilah. ilaaha mahad iskale. ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allah guul barako khayr. insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan ka faa'iidaysano waqtigeena. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay noo dembi dhaafo. ilaahay waxaan ka baryaa wixii aan hore u qaladno inuu noo cafiyo, waxaan qaldi doonana uu noo cafiyo, jannadana na wada geeyo. ilaahayna waxaan nooga baryayaa guul iyo barwaaqo. waxaan nooga baryayaa maalinteena inay noo noqoto maalin barakaysan oo khayr qabto oo guul kusoo dhammaata. adinkana waxaan ilaahay idinkaga baryayaa qofkii xanuunsan ilaahay inuu caafiyo. qofkii maaragtay wax meel ka tabanayo waxaas u tabanayo haddii khayr ugu jiro ilaahay inuu u sahlo. qof rabay wax maaragtay uu waxyaalo uu sameeyo oo dhib ku jirin ilaahay subxaana watacaala inuu ka madoobeeyo waxa khayr ku jirin uu mar walba qaato. runtii halkan waxaan maar rabaa insha allah inaan wax yar oo baraarujina nooga soo jeediyo. maadaama aan nahay dad muslimiin oo u baahan in aan iswaansano oo maaragtay in aan wax isu sheegno. runtii waxaan aniga rabaa inaan horta waaniyo dhalinyarta. dhalinyarta waxa waa dhalinyar yihiin weli. waxyaalo badan oo mustaqbalka oo wax kusoo socda ilaahay unba ogaan karo. laakiin qofku markuu dhalinyar yahay iyo markuu qofku weynaado oo waqtigii gaaro hadda isma lahan. hadda waqtiga aniga hadda age-ka aan joogo iyo markii aan dhalinyarta isku mid mihi isku si uma fikirayo isku si maaha. marka waxaan rabaa dhalinyarta horta inaan ka waaniyo siiba dadka youtube-leyda ah, siiba dadka dhalinyarta oo rabo waxa inay soo gudbiyaan iyo kuwa raba inay mustaqbalka wax soo gudbiyaan iyo kuwa raba maaragtay inay guursadaan iyo kuwa raba wax kasta waxay u baahan tahay horta waxbarasho. wax kasta xataa kuwa raba inay sameeyaan jihaad oo dhahaya anaga jihaadan sameyneynaa. kuwa kasta waxay u baahan yihiin waxbarasho. marka maxay ahayd waa inaan ka fiirsanaa wax kasta oon sameyneyno waa inaan ka fiirsanaa. waxaan aad ugu baaqayaa waqtigeena inaan ka faa'iidaysano. kow horta inaan soo gudbino waxyaalo oo dadka wax taraayo. waa hubaa qof walba inay ku jirto wax aad u qiimo badan oo ilaahay uu siiyey oo just u baahan yahay inuu balfiiriyo meelaha uu ka fikiro ilaahayna uu ku xirnaado 2 ragcadood tukado asoo weyse qabo uu soo galo uu dadka u faa'iideeyo naftiisana u faa'iideeyo dadkana u faa'iideeyo. maxaa yeelay asiga qofka markuu dadka u faa'iideeyna asaga xataa wuu faa'iideysanaya. marka waxaan rabaa inaan ku waaniyo kow gabdhaha wax duuba, wiilasha wax duuba, dadka social media soo gala inaan aad uga fojignaano. ilaahay subxaana watacaala ka magan galno fitno. kow inaan sameyno. 2 nafteena inaan fitno u geysano. 3 inaan dadka kale fitno u geysano. waxa aan soo gudbinayno ha noqdaan wax adduunkaaga iyo aakhiradaada ku anfacaya. walaalayaalow waxa ku anfacaya aakhiradaada iyo adduunkaaga ha noqdaan. haddii aad soo gudbin karin wax adduunkaaga ku anfacaya aakhirada ku anfacaya waa ku baryaa soo gudbin. 2 maxay ahayd waqtigan inaan ka faa'iidaysano duruusta islaamiga inaan barano. inta badan haddaan wax soo gudbinayno wax aan qur'aanka iyo sunnada aan ku lahayn ha soo gudbin. waa ku baryaa ha soo gudbin. wax kuuma tarayaan waxyaalo adduunyaawi ah waxba kuuma tarayaan. hadhowti waa lagu weydiin waxaa qortay waa lagu weydiin waxaad aad ka hadashayna waa lagu weydiin.
marka aad iyo aad aan uga fajignaano isku day dacwada inaa mar walba ka shaqeyso dacwadana waxyaalo badan siyaabo badanaa looga shaqeyna karaa kasoo qaad maalin dhaweyd shalay ahayd ma aqaan cajaladaan fiirsanayay nin oo jooga wadankaas in Afghanistan meel dhahay Jalalabad oo maasha Allah tabaaraka Allah dadka muslimiinta Afghanistan ay degan yihiin wadankooda waxa waaye ninkaas channel uu leeyahay runtii aniga meedida kuma fiicniyo haddii hadda soo gudbin lahaa aniga hadlaay channelkiisa aan soo saaray halkaan waxa waaye waxay ka mid tahay baarta waxbarashada inaan iyadana aan kor u soo kaco marka qofka jaran waa insha Allah waan gaari doonaa inaan aniga qof waxaas aan ka hadlaay inaan xataa xaq u leeyahay inaan soo gudbin karo musawirkiisa soo saari karo halkaan iyo inuu ii ogolaado waxyaalahaas inaan loo baahan yahay marka calaa kulli xaal ninkaas aan kaga sheekeyna wuxuu suubinayay wuxuu soo gaday khuruuf wuxuu soo gaday labo oo wuxuu soo gaday one ma dhahdin Soomaali labo uu soo gaday labo khuruuf uu soo gaday oo buuran maasha Allah tabaaraka Allah wuxuu suubiyey wankii soo qalay ninkan wuxuu ka shaqeeyaa waxyaalaha khayriga ah ayuu ka shaqeeyaa dadka masaakiinta ayuu caawiyaa hooyooyinka dadka waaweyn waayeelka ragga dumarka dhalinyarta dadka dhan insha Allah janalkiisana waa soo gudbin doonaa aad iyo aad aniga marka aan u fiirsaday ninkaas dhowr jeer aan arkay marka wuxuu sameeyay hilibkii uu qalay wuu soo baxay wuu soo nadiifiyay jiidadka dhan oo magaaladiisa ayuu ku wareegaya dadka masaakiinta oo gaar gacanka wato siina hooyada waayeelka siina dhalinyarta siina wiilku siina qof walba xoogaa hilib gacanta u gelinaa nus kiilo camal aan ku qiyaasay kiilo ma aqaan inay dhamayd Allah yaclam kiilo miyaa mise nus kiilo adi nus kiilo camal inay ahayd aan jeclaa qof kasta gacanta u gelina qof kasta waa farxaa marka farxadaas oo wajiga qofkaaga walaalkaaga ka imaanaya wax aad u weyn ma siin laakiin maalinkaas cuntadiisa ama 2 bari 3 bari wuxuu cuno oo wax ku dalacdo ayuu siiyey waxay ka mid tahay waxyaalaha khayrka waxyaalahaas marka wallahi waa la cajabay channelkiisan si fiican u sii fiiriyay waxaan arkay marka in ay ku qoran tahay channelkiisa haddii aad rabtid in aad maaragtay aad lacag ku sadaqaysatid channelka maxaa yeelay waxyaalahaas uu sadaqaynayo asaga maaha hadduu jeebkiisa inuu ka kansado ilaaha og aniga afkooda ma ku hadlo laakiin haddii aan telefonkiisa waca maybe chatting la samayn karaa oo weydiin karaa habka u shaqeeyo insha Allah next time taas waa soo gudbin doona marka wuxuu suubinayaa Allahumma salli ala Muhammad wuxuu suubinayaa waxaa ku qoran 5 waqti iyo xoogaa sentiyaal $1 in iyo wixii kasii koreeya qofkii raba inuu sadaqaysto marka halkaasna qofka adduunka dhan looga xiriyaa Afghanistan dadka oo meel kasta adduunka kale way degan yihiin wadankooda dad dhaqaale way joogan qof kasta xataa wax sadaqaysan karo ilaahay hadaad awoodin wax un baa sadaqaysan kartaa ilaa dad kale xataa ma isku soo aroorsiin $1 wax un baad isku shaqaysin marka sadaqadaas qofkaas walaalka aan laga farxiyay iyo sadaqadaas waxay ka mid tahay adoo diintaada difaacay waxay ka mid tahay imaarta adigoo jannadaada u shaqaysanaya adigoo adduunkaaga u shaqaysanaya adigoo wax fiican soo gudbiyay ka mid tahay maaha intaa iska soo fariisatay inaad dad iska maxamatay dad wax ka sheegtay waqtigaaga jaska intaas ku soo dhamaysay kanaalkaaga dhanba intaas ku shaqaynay ama dadka kale xataa ay macnaha waqtigooda iska dhiminay marka aniga waxay iga tahay baraarujin aniga dadkay kanaalkayga kor uma socdo laakiin insha Allah waan soo kacaya biidnillah marka walaalayaalow aan iswaansano hadda ka soo qaado qof hadduu rabo inuu guursado oo dhalinyaro ah inaa waxaa fiican in aad guurkaaga aad soo baratid shahaado ka soo qaadatid ina aabba noqon kartid ka soo qaad guurkaaga suuna kaaga jajabin suuna divorce kuugu imaan iyo kala tigid inaad been u sheegin gabadha guursanaysid in waxyaalo waxaa la jiro islaamiga waxa la soo galo shahaado la soo qaataa jirto hadda wadankan Malaysia adigoon shahaado qaadan gabar ma lagugu meelnaa gabadhana wiil ma lagu meelnaa iyadoo shahaado wada shahaadadii waxbarashada guurka ka hor maxaa la baranayaa waxaa la baranayaa waxaa xaq lagugu leeyahay waxaa wiilka xaq ama ninka xaq loogu leeyahay reerkiisa ilmihiisa familkiisa xaaskiisa iyadana waxay baranaysaa gabadha ama naagta wixii iyadana xaq loogu lahaa marka qof walba markuu soo barto qof walba wixii xaq loogu lahaa guurkaas oo ilaahayna laga boqo salaadihiina la tukado gabadhina xijaabkeeda ay qabto waxyaalo tabriiji ayna samayn guurka inta badan waxa burburiya macaasida burburida walaalayaalow guurka inta badan waa jiraan dad culimo xataa kala tagana waa sax laakiin waa dhif dad aad iyo aad ilaahay ugu xiran oo kala tago waa dhif qofka ilaahay aad ugu xiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo u diray sameeya والله oo ka taxadara
ومارتا إلهي سبحانه وتعالى أفضي وأفضانسا لكن وحي قدره يماذا وحبك ما قبن كرنا لكن دبي عدنا واجتا وحي على بدنا جرو ظروفا جرو وحكا ساق جرو لكن guurkaas najaxu noqonaya wuu guuleysanaya adduunkan waxaa ku noolaanaysaa janna aakhirin insha allah janna marka aan ku dadaalno dhalinyarteena in ay noo noqdaan dhalinyar guur fiican galay oo aynan noqonin sidii macnaha dadkeeni hore naga horreeyey iyo annaga sidii nagu soo dhacdo kale furiino kala duwan inayna dhicin marka dhalinyarta taas waa baraarujinta dhalinyarta waxaana hadda aan rabaa inaan la shaqeeyo gabar Kenya joogto ilaahay khayr ha siiyo oo maasha Allah gabar aad u fiican oo bartay oo channelkeena inshallah xataa waan la shaqeynayay insha Allah maalin walbana barnaamij soo gelin doontaa oo ah guurdoon anigana waan la shaqeynayaa biidnillah channelkaasna la shaqeyn doonaa oo waxaan xataa rabaa dhalinyarta inaan baraarujiyo inaan wax soo gudbino wax fiican waxaan aad iyo aad rabaa ugu codsanayaa halkan anoo ka faa'iideysanaya inaan YouTube-leyda dadka YouTube-leyda ama dadka ka shaqeeya idaacadaha ama dadka inaan iscaawino oo guddoomiye yeelano oo qof kore iyo qof dhexe iyo qof hoose yeelano oo qof hadduu dembi galo qof celin kara la yeesho oo oon martaayeeto aan la isqabqabsan waan arkaa dadka mararka qaarkood isqabqabsada oo wax isu soo qorqora iyo waxa kale oo aan rabaa inaan halkan aniga aan u sheego walaalahayga muslimiinta waa waano dad waxaa jira aniga runtii been kuma sheega 3 bilood ma soo gelin laakiin inta badan janaalo badan aan fiirsadaa sababteeda aan isku jiifa inta badan waan iska xanuunsanaa sababteeda markaan joogo waxyaalo janaaladan fiirsadaa waan fiiriyaa runtii ma jecel qofkan inaan negative comment u qoro oo qofka dhibsado laakiin waxyaalaha hadday ka badbadiyaan oo qofkan qabiilista uu aad u yahay channelkiisa waa ugu qoraa hoos ilaahay ka baq qabiil ma fiicna saas waa ugu qoraa laakiin hadduu qofka dhexdhexaad iska yahay wax fiican u qoraa waxaan dhahaa maasha Allah barakallahu fik ilaah hore u soco marka taasna waa taas marka walaalayaalow waxa waaye kulli waxyaalo badan naga khaldan waxyaalo badan way noo saxsan yihiin laakiin aan ku dadaalno inaan waxyaalo badan saxno saan ku sixi karnaa waxyaalo badan waa inaan education qaadanaa kitaabo akhrisanaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa u noqonaa ducooyinkeena akhrisanaa maalinlaha ah haddaan xataa maalin ama maalin ayaamo aan ilooni inaan barano maalin kasta ducada alla akhrinayo markii la soo tooso duca la akhriya markii musqusha la galaayo duca la akhriya markii la weysaysto duca la akhriya markii musqusha laga soo baxo duca la akhriya markii salaada maxay ahayd loo istaagayo duca la akhriya markii salaadaha dhexdooda lagu jiro ducooyina la akhrista markii maxay ahayd wax kasta rukuuciisa duca akhrina sujuuda duca akhrina mar kasta adigoo salaada waa duca iyada dhanba salaadi marka inaan nolosheena aan ku markii guriga ka baxayso duca la akhriya waa la isxijaabaa ilmaha xijaab ilmaha yarka xijaab marka guriga ka baxaysid gabar haday tahay acuudu bikalimaati illaahi taamaat ومن كل شيطان هامات ومن كل عين لام adiga xataa gacantaada inta qabto ku afuuf ku abluuf ismarmari insha Allah waxaas aan sheegayo dhan insha Allah tii ku dhaqanta anigana ilaahay iga dhigo maxaa yeelay qofka ugu xun adduunka waxa waaye wax asaga dadka u sheegayo oo asagan uu ku dhaqmay marka ilaahay waxaan ka baryaa anigana inuu iga dhigo tii ku dhaqanta biidnillah okay ducooyinka aan ku dhaqano wallahi alcadiim ducooyinku waa naruuro maanta aniga isku baroobey ayaamaha dhan waa xanuunsanaa ma ku dhahay aan perfect ma ihi perfect ani way waxa ahay marna kor u kacda marna kufta mar xataa cibaadada ka tagayso oo xanuun dartiis ah ilaahay cibaadadiisa aadan u jeclahay marka adkaarta sabax saaka waa akhri alxamdu shukr lillah adkaar sabaxa akhri saaka waxaan akhriyay markaas qur'aan oo 2 page 3 page waa duubay laakiin qur'aankiyaan qalqaldaya next time inuu qur'aanka si fiican u aqaanaan soo duuba biidnillah marka waxaan nafteyda la jeclahay walaalahayga muslimiinta la jeclahay biidnillah amrigayga inta ka dhiman ilaahay iyo rabaa diinkiisa oo shaqeeyo channelkan waxa waaye Hope Family Foundation Hope waa rajadii familka foundation waa taqaanaa marka waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo tabarucaada shaqo abuurka dhalinyarta guurka waxyaalo badan aan haysto way badan yihiin waanada wax kasta wax u sheega walaalkaaga muslimka jeclow walaashaada muslimada jeclow dadka humanitiga jeclow dariskaaga jeclow diinta ugu yeer waxyaalo badanaa jiro ma soo koobi karo waddankeeni qashinka ka aruuriya YouTube-leyda waxaan aad ugu waaninayaa inay qashinka ka aruuriyaan jidadka oo intay barnaamij fiican samaystaan dowladda barnaamijkay bilowday ka qayb qaataan oo ah isxilqaan oo macnaha waagi hore la dhihi jiray maxay hayto iskaa wax u qabso isxilqaan inay ka qayb qaataan YouTube-leyda maalintooda waa inay qaataan
annagana insha allah markaan wadanka imaano waa in la qayb qaadan doonaa xataa maalin aan isu duubi doono anoo la shaqaynayo eeriyadayda macnaha oo nadaafadda bish sanadkiiba 4-5 jeer camal waxay banaankooda nadiifiyaan dhiray ku beeraan gabar baa jirto qaabilsan dariskana way la caawiyaan qof isxiqaamo keligeed waa qof intay u yimaadeen dhahay shaqaalaa tahay waa kanamay والله بلافسي سو قاتان gacmaha la gashto blastigay soo qaadaan waxyaalay soo qaadaan waa biyaha la dhaaminayna ani dhowr mar aan ka qayb galay laakiin nooran soo duubi doonaa biidnillah barnaamijyo warqada albaabka la iga soo tuuraa markaasaan banaanka ugu baxaysa waa axad maalin axad ah oo adiga maxaa dhahaa sanadkii 4 mar camal ay sameeyaan waqti seasonkii ku xiran tahay mar oo la nadiifinayo marka mar maartay dhir la beerayo mar maxay hayto waxyaalo kale ku soo darayaan mar laga nadiifinayo qashin xaafadda waxyaalahaas jiro marka miyaan ahayn Soomaaliya kala ka soo qaad xaafad 10kii xaafadba intii iyaga isla qaamaan inay xaafadahoodaas ay dirbiyadooda rinjiyeeyaan hadda waxa isleedahay Safiya waxaas waa dhib laakiin dhib maaha hadii qof walba wax yar lacag la isku daro oo barnaamij ay sameystaan dirbiyadooda nadiif banaankooda nadiif wax yar dhir hadii lagu beeri karo lagu beeri meel oo yar xataa dawladda ay ka codsan karaan dawladda hoos oo kale lagu beero wadanka oo nolosha kor u kaco farxadda waxa waay nadaafadda waa marka insha Allah waanooyinkaas aynu soo jeediyay waqtigan uu sii dheeraanaya channelkayga subscribe iigu sameeya thumb up iigu sameeya gambaleelka ii taabta saa ila socotiin hadda dadkii aniga aan la bilaabay waqtiga hadda 100,000 sii dhaafeen aniga kulleeyt waxa la wixii raagaa khayrna ku jira ogaadaya wiliga waxa day raagaan oo nolosha xoogaa lagu dhibdhibo macnaha don't worry waa gaaraysa insha Allah waan gaaraya channelkan wuxuu u furan yahay caawinta dadka biidnillah guul buu gaari doonaa Soomaaliya xataa waan tagi doonaa waan soo salaami doonaa magaalooyinka Soomaaliya oo dhan biidnillah waan soo duubi doonaa hooyo waxaan noqon doonaa insha Allah gabadheena dhimatay ilaahay u naxariiso booskeeda noo gasho dad kalena waan rajeynaa inay ku jiraan oo wadanka dhan waxyaalaha khayrka wax kasta ka soo duubta tabarucaad ka shaqeysa waan ku waaninayaa kulligeen inaan ka wada shaqeyno arrimahaas oo dhan oo waqtigeena aan ku dhimin hadal badan haan ma buuxsho marka hadal maxay ahayd wiilkayga maal dhawid ii sheegay hooyo waxaan dhahay adi horta ma hadashide wuxuu ugu yiri hooyo kelmad carabi igu sheegay wuxuu dhahay sukaadka wuxuu yiri sukaadka waxa waaye aamusnaanta wuxuu yiri haddii hadalka badan muu yiri ma aqaan wax camal silver yahay sukaadka dahab uu noqonaya camal sukaad waxa aamusnaanta waxay noqonaysaa dahab waa kelmad aad u qurux badan oo insha Allah next time ka soo qori doono marka hadalka badan waxa waa ficilka badan ayaa ka fiican laakiin alxamdulillah marmar waa loo baahan in la hadlo oo la soo gudbiyo oo maartay xataa social life kan inaan hadalno waa muhiim caafimaadkana way ka mid tahay marka ilaahay khair aan idinkaga rajeynaya waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed xalay maahan habeen hore dhan aan soo jeeday ilaahay amarkiis waa xoogaa private laakiin arrimahan sameeyay waxaan ilaahay iiga baryo oo adinka Soomaali iiga soo baridin inay arintaas ay noqoto waxaan la hadlay dhalinyar oo WhatsApp isku kulanay WhatsAppkayga ani telefoonkayga ayaamaha dhan soo ogtihiin ba iga hadlaysnaa marka maadhow telefoonkan cusuban hadda maadhow soo gatay Tesco waa iska telefoon iska maasha Allah tabaaraka iska raqiis ah aniga telefoonada qaaliga ma jecel inaan gato ma awoodo laakiin insha Allah waa awoodi doonaa marka ala kulli xaal waa iska insha Allah marka waxa WhatsAppkiya inta ku soo download gareey insha Allah ma daraan Facebookayga wixii dhina hagaajiye alxamdulillah oo messengerkayga xogaa iga ahaa gabadheedu ku xirnaa gabadheeda markaas aan la hadlay waa hagaajiye ala kulli xaal kabacdi wixii alla WhatsAppka ana WhatsAppyo badan ii furan oo ka soo qaad shaqo abuur maxay ahayd masaakiinta caawin adiga ma tirin karo guurka ilaa from 2018 WhatsApp group aan furnay laakiin alxamdulillah dad waa ka helnay waan isbarbaranay waxyaalo waan ka faa'iideysanay laakiin dhaqaalo aruuris ma ahelin ilaa wixii habkii aan u reebay channelkan aan u furay oo ahaa Hope Family Foundation caawinta dadka wali ma soo gaarin marka waxa dhacday in aan la kulmay WhatsApp groupkaas hada wax maahan khatar ah qofka bini'aadanka markuu qof kasto adduunka nool ama group kasto adduunka nool program u nool yihiin marka qof walba waxa waaye suuq geyntiisa uu soo gudbisanaya marka channelkaas waxaa la soo geliyay barnaamijyo la soo geliyay oo xoogaa aniga aan baqay xagga safety-geena marka barnaamijkiyan waxaan adeegayga habeenkii dhan soo jeeday adeegayga waxaan sameeyay waan wacay telefoonka barnaamijkan soo gelgeliyay waxaan iri waa la ila hadli waayay waxa la dhahaa cod noo soo dub
marka waxaan dhahay okay codkaygii waan qoraal waa qoraal codna waa u duubay maanta dhan aan la hadlaayay waan wacdinayay waan waaninayay anigana waa la ila soo hadlay waxaa la yidhi saas anaga arrintaas that's why u samaynaa marka bal arrinta soo duceeya waa xagga safetygeena soomaaliya ku saabsan in ilaahay subxaana watacaala aan guul ka gaarno oo ilaahay mar dambe waddankeena uuna qarax ka ridin arrimahaasaan ka shaqaynaya ii soo duceeya waa in baryaa soomaaliyeed ani mayna dhahay jaamacadan kasoo baxay ani milyarana ahan maku dhahayo dhaqaalan wadankii ku bixina ani maku dhahayo maxay ahayd dowlado shisheeyaa lacag isiiyo ani maku dhahayo wadankiyaa dhaqaale isiiyo no weli ma gaarin heerkaas hadda step by step kor baan u socda hooyo kor u socotaan rabaa inaan noqdo ma maqashay kor marka u socotay marka waxaa kor ka wada ma aha maaha adduunyaawi inaan u socda ani adduunyo shuqul ma kulhi ani aakhire ii sheeg aakhire u shaqaysanaya ani waxa waa aakhiro markaan galo godkayga inaan ku irtaaxaan rabaa halkaas oo ilaahay iigu naxariisto waxaan rabaa adduunkan raaxe inaan ku noolaado oo qalbigayga uu ahaado saliim qalbigayga inuu ahaado saliim carabkaygana uu sheegay lisaan saadiq uu noqdo carabkayga lisaan saadiq qalbigaygana saliim taas nolol ka qurux badan ma jirto alxamdulilah marka waxaan rabay kaleeto inaan marka aniga arrintaasaan rabaa inaan galo soomaaliya waxaan rabaa qaraxa inaan ka joojiyo soomaaliyeed ani ma ka joojin karo laakiin ilaahay u baryaayaa xalamahan habeen hore dhanoo usoo jeeday maanta dhanoo cod duubaayay yaa soomaaliya anigoo dhahaya yaa waa ku baryaa bliase maxaa u samaynaysaa saas anaka muslinaan nahay anaka waxaa nahay muslim 100% sunni muslim ah maxaa waa dhibaatadaas ani waxaa lay dhahay marka saas ma aha saas amoodi ma ahan waxaan dhaha okay ma soconayso saas waa in anaka soomaaliya ay noqotaa meel biis ah waddankeenana hadda wuxuu kusoo socdaa kor hadda benziina noo soo socdo dhulka waa lasoo saaraa deymankii waa nalka cafiyay dowladda maalidu waxaan maqlay aniga ma ihi naag iska jiifta aadan u dhegaysaa wararka kala duwan idaacado badan aniga aan sign up u ahay oo aan dhegaystaa idaacadda dowladda waa dhegaystaa idaacado badan aan dhegaystaa ma tirin kari calaa kulli xaal hooyo soo jeedaan ahay maadaama aan iska jiif sararteeda maaha inaad dhintay waa noola weli waa soo jeeda gurigeyga ilmahayga xoogaa waa dayacan yihiin laakiin insha allah way ka baxayaan dayacaas xagga macnaha caafimaadka qof kasta caafimaadka hadduu ilaahay ku siiyey bixinaha waa maasha allah inaad dhahdid haddaa maanta ilmahaaga cunto u karinaysid oo qado u karisay oo quraac u karisay oo gurigii nadiifisay oo dhulkii dhaqday oo adigii isqorxisay oo qabaysatay oo isdaahirisay oo maarata salaadii tukatay say alxamdulilah markaan dhalinyartaa waxaas dhan aan soo samayn jiray 5 children aan soo hayay marka maxay ahayd ka horna gabar yaraan haysto anoo keligay marka alxamdulilah 6 ilmoodaan soo korshay alxamdulilah ma shalaynaya ilmahaygana waa ii wada koreen laakiin hadda iyo dan soomaaliya waxaan rabaa inaan ini dhaho waa ini baryaaya gacmaha kor aan u taagno ilaahay soomaaliya suuna uga ridin maalindaba qarax askarta waxaan rabaa inay gacmaha kor u taagaan ilaahay baryaan dhahaa yaa rabbi qaraxa noo keenin iyagana ay salaadaha tukadaan adkaaraha akhriyaan qur-aanka akhriyaan dowladdana sidaasoo kaleeto walaalayaalo aan wada shaqayno kulligeen far keliya fool ma dhaqdo ogaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu kasoo bilaabay masjidka laga soo bilaabay dowladda islaamka waxaa laga soo bilaabay masjidka markii laga soo bilaabay gurigana waa in laga bilaabaa guriga waa in uu rasuulka sal ly slam ku dabaqeeyaa rasuulka muxuu suubin jiray sunnadii rasuulka sal ly slam ilmaha in lagu dabaqeeyo qur-aanka in lagu dabaqeeyo inaan qur-aanka barno xadiiska barno sunnada barno okay marka waxaan ka shaqaynaynaa kulligeen haddaan soomaali nahay sida waddankeena uu noqon lahaa kor usoo kici lahaa qaxootigeena adduunyada jooga adduunka dhan qaxootigeena jooga soomaali haddaan nahay inaan noqono ma rabnaa inaan u hijroono waddankeena ma rabnaa aan wada shaqayno walaalayaalo waanadeeda maanta qaata janaalkaygana subscribe ii sameeya waxyaalaha sirtaa inii sheegina ilaahay waxaan ka baryayaa inuu guul ka dhigo waxaan aad iyo aad uga codsanaya janaalkayga meel kasta inaad geysaan oo sii subscribe siisaan aniga waxaan ka shaqaynaya nabadda insha allah nobel prize kama rabo adduunyadan ilahan ka rabaa nobel prize khayrka inaan jeclaano kulligeen hooyada garoobka ahayd niyadda ha iska jibin qalbiga ha iska jibin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku siiyey باورك إلهي كسي محيهيتو gudahaada ayuu ku jiraa soo saar waxa ku soo saar kartaa oo ku ogaan kartaa baawar ina leedahay ilaahay horta u noqo ilaahay marka u noqotid baawarkaagu soo baxaya bal maanta wax ma ka khaldan shal wax ma ka khaldana wax ma kugu soo dhacay wixii dhan forgad orotag isdaahiri weysiiso
laba ragcad tuko ilaahay ducadiisa akhriso bal arag korkaaga ka dareen maxaa ka dareentay farxadaa ka dareemaysaa khafiifa dareemaysaa maskaxdaada way ku furmaysaa waa guulaysanaysaa marka Soomaaliya waxa waaye waa in salaamay dhammaantiin aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin waynu cajaladdan way sii ordaysaa marka guul Soomaaliya waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaya oo waanadeedu ugu weyn walaalayaal hal noqda ilaahay ka baq gabadha ilaahay ka xishoonaysa iyo wiilka ilaahay ka xishoonaya iyo ninka alla ka xishoonaya oo inta meel soo fariista ka hadla qabiil wax ku saabsan oon khayr ahayn ilaahayow adiga og xaalkiisa qofkaas wuxuu ku sugan yahay waa jaahilnimo haddaad meel soo fariisato ood ka hadlaysid wax ku saabsan khayrka sidii ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu dhowaan lahayn sidii ilaahay subxaanahu watacaala dad dacwadiisa aan u fidin lahayn dariskeena saa ugu naxariisan lahayn gurigeena saa ugu naxariisan lahayn ilmaheena saa ugu naxariisan lahayn nolosheena saa ugu naxariisan lahayn sidaa isku jeclaan lahayn soo gudbi sidee la isku jeclaalaa bal ii sheeg caafimaadkeena soo ugu dadaalnaa bal ii sheeg taas waxyaalaha soo gudbi soomaaliyana waxaa leenahay guul dowladeena guul insha allah way kor u soo kacaysaa soomaaliyana waa hal mid annaka muslimnaa nahay dad muslim ayaa nahay muslimiin sunniyaa nahay wax la dhaho maxay ahayd Soomaali qaraxa ka dhacaya iyo dadka halkaas jooga ma fiicno iyo ma jirto ana afkayga waxaas ma ka soo saari kari ilaahay ka baq please ilaahay ka baq culimadu way noo sheegaan xadiis ay maalba soo geliyaan ducooyinka soo geliyaan way noo sheegaan inay ahayn iyo juus oo macnaha in meel la isku gubo ama la isku qarxiyo xaraam meel ku taal ma aqaan ani rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabadu jeclaa allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta ya jal jalal wal ikram ilaahayna waa nabadan xaqiisa ka imaata allahumma anta salaam ilaahay xaqiisa waa nabad wa minka salaam ilaahay nabad xaqiisa ka imaata marka anaga nabad wax fiican ah nabadaa lagu guuleystaa nabadaa caafimaad ah nabadaa lagu baraaraa nabadaa dadka ku dhaldhalaa nabadaa wadanka ku balaalaa nabaday nolosha ku soo kacaysaa ekonomigu ku kacaya nabad meel aan nabad jirin waa walwal iyo mashaakil waxbarasho xitaa ma la baran karo waa walwalaysaa leh marka ilaahay walwalkaa naga qaado ummadda Soomaaliyeedna guulaan leeyahay dadka ishaysto iyo maxay ahayd dadka la leeyahay Kismaayo heblow inta ka soo qaad gadagadow ka soo qaad mandheero muqdisho waa in bariya kulligii walaalaa tihiin ha isdagaalina dowladda hadalkeeda maqla hal aan noqono ka soo qaad maxaa dhahaa dowlad goboleedyada kale ka soo qaad aadan dhageystaa maxay ahayto walaalahayga muslimiinta ahow waa in bariya dowladda hadalkeeda maqla wallahan ku dhaartay magaca Allah ku dhaartay weligay allahay 30 sano ka soo maqanahay Soomaaliya weligay allahay ninka la dhahayo farmaajo iyo ninka la dhahayo khayre dadka fiican weligay ma arkin ani gudahooda lama noolaan guryahooda ma tagin laakiin macaamilada ay sameynayaan si u tanaazulayaan dhaqaalaha wadanka inay hagaajiyaan iyaga xataa wallahi waa dareemaysaa dadkaas sheekh khayraha waa dareemaysaa ma sha Allah imaam maxal dhahaa imaam Allah ka dhigay maartay sidoo maartay aqligiisa waa nin dhalinyaro aad maartay ilaahay subxaanahu miyaan anaga garan karno inaan garab istaagno dowladeena dadka ninka maaliyadda haysta baarlamaanka kulli dhaha ma sha Allah tabaarakallah shar iyo shaydaan ilaahay ka duu u duceynayna in iyagana wax hadday naga halaysiin ay hagaajiyaan ilaahay wax uuna raali ka ahayna ayna samaynin haddii lowgeena Soomaaliya oo maxaa la dhahaa la qoray oo ii sheeg baarlamaanka wax ka soo horjeeda diinta ilaahayna ay ku qoran tahay waaba la sheegay ma soconaysaa la yiri Soomaaliya inay ka dhacayso wax diinta alla ka soo horjeedo no marka maxaa noo eg wixii nagu soo dhacay 30 sano aan wax ka barano wixii nagu soo dhacay 30 sano aan wax ka barano dowladeena aan la shaqeyno waa in baryaa naga dhaafa qabiilka waa in baryaa hadaarto inaan bulaalno oo xataa Soomaaliya hadda waxa la jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaal Soomaaliya ala dhahaa Soomaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya okay federaal maxaa loo keenay anima iyo qof politika akhristay laakiin sida aniga aan taariikhda waa jeclahay laakiin sida aan dileema federaal macnaha waxa la rabaa gobol kasta inuu soo kaco ekonomigiisa dhaqaalihiisa inuu isku fulaan gaaro dowlad korona ay yeelano oo dhexe oo maartay iyada wadanka powerkiisa dhan haysata why not
yaa noo diiday soomaaliya dhan ana waxaa aaminsanaha sida anigoo halkan joogo magaalada Dublin Ireland aan joogo aan u jeclaada dowladdaas weligeyna wax xiriir ma dhex marin hadda dhow xataa bilaawraadi muqdisho inaan dhageysto SNTV ay ku qoran tahay hadda dhow aan bilaabay waa u hambaliyaya waxyaalo fiican oo degan oo dhexdhexaad ay soo gudbiyaan marka waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka waaniyo oo uga faa'iideysto please dadka dhalinyarta ah oo wararka soo jeediya ama dadka waaweyn waa ku barya ogow qalinkaaga waxaad ku qortid wadankaaga haddaad wax fiican ka sheegtid waa wax adiga amaartahay ku aakhiri adduunku anfacaya haddaa adi wax aan been ah oon jirin aad ka sheegtidna aakhiri adduunba ilaahay wuu kuu jeedaa wallahi ma kuuleysanaysid waan aqaanaa dhowr qofaan aqaana wallahi janaalkooda xataa ma furo acuudu billah intaan aan iska damiyaa because balaayo dhagahayga kusoo dhacaysa I don't like dhagahayga balaayo inay kusoo dhacdo marka waa ku baryaa ninka dhalinyarta ah oo qabiil fulaano kano afka ku haya والله إنا وليا قولي سنين تتكلم وكوكرهايان ملائكة كوكرهيسة الله سبحانه وتعالى وكوكرهايا هادو الله كوكرهانا وكنا عبادنا دتك أدونك إنه كنا عبانا جروب يلا كنا ها جود ناور سوا مكوس عنس مرك إلهي كبق وكبريا قبيل وحبا ماهن آخر قلت كل جاية جلاية هالقف كل جلاية مره أنا وحان دريمايا إنان ميلو بطابتي حق الصدقة مالي دويد وحان أركاي channel كان لده محل لها أنا مرة مقع إن channel كشيء لكن channel كم أو وين أو TV بوحو سوسي دايي نن سوق بربرسن أو مقدشة الحديدية لا لأن يرى هن أنا جمر كان يرين بنين كان هل كان وياليو oo dugsiyo dhigan jiray ninka aad isugu burbursiyaha maskiinka waa curiyaan afarta adinba indhoole xataa inuu ahaay umayna Allah ama istaghfar ma hubo taas indhaha inuu uga jeedo waxa umayna laakiin gacmihiisa kulbu isku adiga in qof wuxuu ahaa u baan caamad wasaq badan ka muuqatay iyo baahi iyo dhibaato adiga wiilala waxay u keeneen kursi yar lagu qaaday I don't know waa soo ogaan doona qofkaas haddaan weli la caawin insha Allah waan soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilmo Ilaahay ii sakhro وعافمات يجلسوا الدعاء إن أنيقا عن حرير سمايو أم بالقفكاس فيه هدي لعاويين وان أجوهم بلينا يا وان أجوهم بلينا تيفي جا سوق بيه أساس سوق بيه وحنا أجوهم بلينا أنها دو سوق بيه تيفي جاس ولا على تيفي ذو وين إن القفكاس سوق بيه وأسق الرادي وحي مال أي نور الأوكرانيا مدة ذكر وحنا كعصنا دولة دين الصومالية ما دام إيمان دويد وهاي دكتور بيلي إلهي وحنا أقبرياي إنه نقول سي دولة دينا دمانتود إن لعجة بدن للسي لعجهاس بدن وحن آدي أقعد صناعي الدولة ده إني كعاوس مساكين لو عاويو قريه لوجو سمايو دتك واوي دتك دباتيسن جلدك laga aruriyo guriyo loo dhiso dadkeena qurbaha jooga iyo gudaha ku joogana dawladda xataa ay soo gudbisay in la caawiyo wixii la caawin karo laakiin iyada balaanka koowaad ay noqoto maadaama iyada ay mas'uuliyad